xafladan oo ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta ardayda ayaa lagu qabtay iskuulka Al-Furqaan ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin, marti sharaf iyo waalidiin. ardayda wax ka barta iskuulka Al-Furqaan ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ay u riyaaqeen ka soo qaybgalayaashii xafladaasi. marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda waxaa ka mid ahaa Abwaan Xuseen Hiiraan oo halkaasi ka soo jeediyay gabay uu ku ammaanayay iskuulka Al-Furqaan. ammaan dheeraadii Al-Furqaan waxaan ku siiyey ardaydii joogtay tiraan gobeediyo aqoon sarraysay leeyihiin iyo Maama Maryama oo ka mid ah waalidiinta ubadkoodu ku guuleystay kaalmaha hore ayaa ku baraarujisay dadweynihii ka soo qayb galay xafladda inay ubadkooda ku soo hagaajiyaan iskuulka Al-Furqaan. gabadha Xamdi Cumar Abdalla kuma qaale kaalinta koowaad keentay ana dhalay insha Allah ma sha Allah ilaahay i barakeeyo inta waalidiin meesha ku soo qayb gashay waxaan ku baraarujinayaa ciyaalkiina oo ardayda ah